wanaagsan qiyaarta wada naga daawaneysay ku soo dhawaada warka telefishinka ilaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta tababar u furay macallimiintii dhawaan ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Isaaq Axmed Madoobe oo madaxtooyada Jubbaland ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay wakiilka qaramada Madoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland saraakiil ka socotay maxkamadaha ciidamada oo maanta kormeeray xarumaha xasilinta caasimadda ee Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug oo maanta dhuusamareeb ka furay shir looga hadlayay nidaamka dowladnimada loo dhayahay 4 gabdhood oo Soomaali ah oo shil gaari ugu geeriyooday dalka Mareykanka faahfaahinta ka soo baxayso dil loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka ilaa